in badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed Ramadaan adag ay wajahayaan maadaama Ramadaankii uu ka dhiman yihiin wax ka yar isbuuc ama maalmo kooban oo faraha lagu tiriyo. Dalka Soomaaliya waxaa ku dhuftay abaaro aad u baahsan oo dad iyo dunyaba waxyeeleeyay. Sidaas oo ay tahay haddana weli waxaa jiro in aad loo musuqmaasuqayo dadkii wax siin lahaa oo arrintaasi si kala qaybsanayo. Dabcan intaan waxaan ku eegi doonaa dhibaatada baahsan ay wajahayaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo maamul goboleed walba ay joogaan. herbaadi haddaan anaga waaba dhamaanay haddaan dardaarmaynay haddaba hanoo dhegeysta dadaa meydka in lacag ku qaadan doono oo dhihi doono dad ay abaar naga laysay haddaad meydka in lacag ku qaadatid soo maha dhuxulo naareed allah kaaga dhigi dhuxulo naareed. waa hadallo muujinaya quus iyo niyadjab ay sababeen abaaraha ba'an ee ka jira meelo badan oo ka mid ah dalka iyo musuqmaasuq ku yimi gargaarkii dadkaasi loogu talagalay. abaarahan oo ka dhashay roobabkii baaqday ama si aad u yar u da'ay xilliyadii la soo dhaafay ayaa sababay biyo la'aan, daaq xumo iyo xaalad nololeed oo aad u adkaatay. reer miyigu waxay la tacaalayaan u helidda xoolahooda. ayadoo dhibaatadaas ay jirta ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud maalin dhaweed wuxuu si aad u wanaagsan oo hadal qiimo leh uu ka hadlay abaaraha ku dhuftay dalkaas oo sheegay inay yihiin musiibo dabiici ah isla markaana ay u baahan tahay in la iscaawiyo gacmahana la isqabsado. hay-adaha kala duwan ee dowladda wuxuu ku amray in wax walba ay gacmaha kula jiraan uu kala baxaan isla markaana ay u gurmadaan dadku abaaruhu ay waxyeeleeyeen. duruufaha dalka maalin walba meel ay taagan yihiin maanta arrinta abaarta oo waayahan dambe oo dhan Soomaaliya meel ku soo noqotay juqraafi ahaan meesha ay ku taalo iyo awaamirta Ilaahay wixii uu keenay waaye iyo climate change-ga sida adduunka uga dhacay iyo maxaa cibaarooyinkaas fasakhaadda hawada iyo environment ku dhacay ah yaa keentay abaartan yaa sabab u ah sanadihiibana runtii soo wareegto marka waagii hore waa kala dheeraa jirtay 10 sano mar 15 sano mar ayay ahaa jirtay sida hadda ay taamaayeen hadda waxaad u maraysaa meel haddii aanay ka jirin meel kale ay ka jirtaa dalka meel haddii maxaan ku raadaay roobabku ay ka da'aan dhulaad u maraysaa inay ka maqan yihiin elneenooda markay timaadana waa fataha. muuqaalada aadka u baahayay la tebinaya waxaa ka mid ah dad waaweyn oo waayeela caruur iyo xoolo kulli biyo wada qaybsanaya oo aad u dhiban. dabcan muuqaaladii la baahiyeyna waxaa ka mid ah aduwa xerbexero sidii weeye xabaq cadaado bay arjiri wadagtaa inagu xidadiyo ku maano ama salaamaha xubnaha xumaan haygu darin waxyeelee. abaartan ayaa dhinac walba oo dalka ku dhufatay awgaag sii kala darnaadaan gobolada balse haddana muuqaalada la baahinayo waa qayb walba oo Soomaaliya ka mid ah waqooyiga bartamaha koonfurta ilaa iyo galbeedka ilaa meel walba oo dalka ka mid ah. sida aad ka dhahan kartaan muuqaalku aabba Soomaaliyeed oo caag eber oo biyo isugu jirin ciyalkiisa ku qancinaya ilaa 4 caruur ah oo oon iyo haraad u meel cidla ah baaba ku dilay lagana yaabaa inay dhulkooda uga soo carareen abaarta jirto meel dhaxana ay biyo aynan haysan qorraxduna aad ay u dhacayso haraadkana u daran yahay ciyalku iyo dadka waaweyn aad ay u nugul yihiin. waa caruur yaryar oo aad u dhibaataysan wax ay cunaan iyo waxay cabaan iyo waxay baadka dhigdaan intaba aanan haysan isla markaana wadooyinka iska soo aaday si ay wax u raadiyaan ayagoo laga yaabaa in qaarkood ay basay u socdaan iska dhintaan maadaama aysan jirin wax ay cabi karaan iyo wax ay cuni karaan intaba. abaar aad u xun ayayna ahayd waxa ku dhuftay dalka xilli kuleel aad u baahsan oo ka jiro colaado badanna ay ka jiraan sidoo kale. waxaan maraynaa haddeer meel la yiraahdo geel ku ribid
geelaasaan wadaa waxaan ka soo celiyey meel la yidhaaho baadiday baddii baa in yarii jidhay inta badda iga shishaysa birrigaana waa maray xoolihii say u socdeen baa baddu soo celisay geeliina waa farfaristay waannu soo noqonnay dadkii kalena isagoo baddii u sii socdaan soo daba maray haddee dadkii biyihii iyo qutulyoon mid dad iyo mid duunya labadiiba ciriir bay waa aabba soomaaliyeed oo xoolihiisa meel fog ka soo qaaday ka soo waday oo ah puntland soomaaliya meeshii kale uu tegeen wuxuu ka waayey islamarkaana uu arkay markii dambe xoolihiisii geeli uu watay oo mid u ruux baxay maadaama wax ay cunaan ay waayeen muddana uu soo waday sida awarkiisa ka dhehan kartaan uu sheegay badda ayaa soo celisay marka dabcan abaarta intaas leeg oo gobol walba ku dhufatay ayaa haysata dadkii soomaaliyeed mana jirta dowlad saas u awood badan oo caawi karto walow ay jiraan dad soomaali oo wanaagga jecel balse awoodooda aysan hayn waxyaabihii ugu wanaagsanaa oo dhalinyaro reer muqdisho ay sameeyeen maanta waxaa ka mid ah inay kaalmo u ururinayaan dadkaas islamarkaana ay isxilqaameen siyaasiyiintiina ay sidoo kale ka dhadhacsiinayeen waxaa maanta laisku haayo siyaasad ahaan waxaa ka muhiimsan dadka maanta dhimanaya inaan badbaadino oo waktigiina inaa u hurtaan dhaqaalaha ku bixisaan waxaa intaanu dhalinyare usoo baxeen inay maalinta waktigood u huraan inay dadkaas ay caawiyaan idinkana waxaa tihiin dadka maanta lacagta ilaahay siiyeen maanta ilaahay ugu dhawaada ilaahay ka baqa waxaan rabnaa inaad maanta ka bilaabato gurmudkaan oo xarunta arkaan aan ugu talagalnay gurmudka abaaraha cid walba maanta ilaahay wax siiyey siyaasiyiinta ganacsatada culammada cid walba inuu halkan yimaado oo wax ugu deeqo waxaa farxad weyn oo ah in aan maanta aan ku dhawaaqayno gurmudka abaaraha aan ugu talagalnay dadka dhibaataysan dadkii nagala soo qayb galay ee ugu horeeya ururada jaamacadaha ururada madax bannaan ururada dadka baayaha gaarka inkastoo dadka awoodooda aysan wadahayn islamarkaana aynan ku fiirsanaynin dadka dhibaataysanaya haddana sidoo kale xitaa waxaa jira siyaasiyiin ganacsato xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya oo iyaguba waxyaabo hid bilaabay maalmihii lasoo dhamaa 24 saac lasoo dhaafay oo dadkaas ugu yaraan waxa ugu daran oo biyaha waxay cabaan ay leeyihiin inay u dhaamiyaan bilaabay muwaadin adiga nafsad ahaantaada waxaa tahay qof muwaadina wax la-aanayno dadkaadii haddii dabcan ilaahay wax uu ku siiyey ama aadba maanta haysata adigu waxaad qabsato ama waxaad cunto ama aacabta dad aanan hayn ayaa jiro inaad ku masruufto islamarkaana aad siiso ku sadaqaysata aad ay u wanaagsan yihiin waxa dhimanaya waa dadkaadii waa mahadsantihiin saaxiib yaal